cabdisalaan maxamed kaamil waxa uu hamigiisu ahaa inuu ka mid noqdo xidigaha caan baxay ee fanka Soomaalida waxaana uu geedigiisa ka soo bilaabay dalka Itoobiya oo ku noolaa isaga oo qaaday heesaha looga xiiseeyo deegaanada Soomaalida waxaana uu soo hayaamay Hargeysa oo ah xudunta fanka Soomaalida ahna meel uu fanaan kasta jecel yahay inuu marun ka heeso Hargeysa waxa ku qabsatay duruuf adag oo ku khasabtay in fanaankii heesiisa la dhageysan jiray uu baabuurta masaxo turnaantiniyom nolosha rafluka waxaan bilaabay markii adu ay ii suurtagal weeday fankayga iyo waxyaalaha aan wateen waxaadna wiilayseen abdigaad ku haysiyo waxaadna wiilayseen abdigaad ku haysiyo noqon maysa taadee darurada ayaankiyo nasiibkayga waan heli nasiibkayga waan heli horta nin kastiba hami buu leeyahay anna hami waan leeyahay laakiin haddii aan heli lahaa waxay qacan qabto ficnaan lahayd cabdisalaan waxa uu jeclaa in loo fidiyo gargaar si uu uga baxo duruufta hadda uu ku jiro masaka baratiyo nafta ruuxi kula sidaa masaka baratiyo nafta ruuxi kula sidaa lama wadaaji noloshayda ayaha nacabadigu ha u jabin nacabadigu ha u noqon cabdisalaan maxamed kaamil waxa uu ka hadlayaa sida uu fanka ku soo bilaabay iyo soo guuridda Hargeysa rajadii uu ka qabay fankaygana waxaan ka soo bilaabay maxay ahayd magaalada Jigjiga runaantii waxaan waliba soo galay markaan fanka soo bilaabay maxay tababar baan soo galay anigiyo dhalinyar fara badan oo maxay ahayd imkaan xasuusto ay kamid ahaayeen Maxamed Jeestiyo Jina Kaboodiyo alona xariiste NRD Nuruddin nin la oran jiray maxay ahayd iyo qaar kale iyo caldaantii macna marka kabacdi tababartii waqtigii markaan ka soo baxnay ayaan fankii sidii maxay ahayd aan soo bilownay بعد مركان فنكي صوب بلوني واحد عادي محي هيدي إن أدو فنكي هتنا مد أن سكوير لعنه كبعد أدو وحي مركان أدو نكي سكوير لعنه أيال الحري كبعد مركي تما هتنا ولا سودا واحد كو حاجة أسا إلى لسه إيش أس كبعد ماشي مردور بلودي لأن لي كمش يكونوا وقت جاي يقولي محي هيدي هلو بديو عبد السلام وردير يمال كله هلو بديو مدرسة marka waxa lii waayay maxay hayday ciidan marka aniga aan raaco kabacdi meeshii ma laga dhigay maxay hayday sabiyaama laga dhigay waxa dhacday dhowr bilood markaan joogay inaan markii dambe iska soo baxso meeshii oo Hargeysa iska imaato Hargeysa runaantii markii aan imidina maxay hayday sidii ay ka rajeynay oo runaantii kaman hel oo caqabado badan ay iga hor yimid madrasa meel fara badan oo macal tagay waxa ay wari muddo caqabado marka runaantii saas wax ay haafankay iyo deegaanada Soomaalida waxaana uu soo hayaamay Hargeysa oo ah xudunta fanka Soomaalida ahna meel uu fanaan kasta jecel yahay inuu marun ka heeso kula hadlan ku iman lahaa kaamana daaheen نعبكم جبشن نحدين ما بيرن نعبكم جبشن نحدين ما بيرن كولي لا بابان نسكو هورلا
cabdisalaan waxa uu jeclaa in loo fidiyo gargaar si uu uga baxo duruufta hadda uu ku jiro. horta nin kastiba hami buu leeyahay, anna hami waan leeyahay. horta waxaan ku codsan lahaa caqaduhu way iska fara badan yihiin, laakiin haddii aan heli lahaa waxay qacan qabto way ficlaan lahayd. sida taalbilaalatiyo aad soo baxaysaa sawirkiyo fallaadhaha subaxii dul joogaad suraa doodi leedahay. sumcad iyo midii qurux waynuhu ku sooreen sadrigayga deeqdaay. sidignaye jacaylkii sawjadiga qabowiyo samiriyo midhooda leh saatir hayga